Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Secret Academy. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeena ugu dambeeyay oo aan ka qaadanayno casharadii aan ku bixinay MS Word-ka. Marka ugu horeyso waxaan soo furanayaa MS Word-kayga. MS Word-kayga marka aan soo kiciyo waxaan ku qaadanaynaa 6 qodob oo aan ku sheegayno casharkeena. Qodobka ugu horeeya oo aan ku qaadanayno waxay tahay sidee table aan ugu samaysan karaa MS Word-ka. Marka ugu horeyso waxaad ku dhufanaysaa insert tab-ka kadibna waxaad ka dooranaysaa table markaad ka doorato waxay ku xiran tahay table-ka adigu aad rabto inta column uu ka koobnaan karayo. Row waa wax la badin karayo, sidoo kale si la mid ah column-kuna waa mid la badin karayo. MS ayaan u baahanahay aniga marka inaan column aan samaysto. Sidan haddaad u fiiriso waa row-iska dhirirka ama hooska waa row. Sidan haddaad u fiiriso waa column-ka. Waxaan rabaa hadda marka 5 times 1 oo macnaheedu yahay 5 column iyo 1 row. Qaybta ugu horeyso waxaan ku qorayaa SN oo serial number-ka. Tab ayaan dhahayaa saan u galo godka kale. Waxaan ku qorayaa halkaasi full name. Tab ayaan leeyahay saan godka kale aan u galo. Waxaan ku qorayaa marka meeshaasi gender qofka wuxuu yahay. Tab ayaan leeyahay. Tab markaan dhaho waxaan halkaas ku qorayaa date-ka, taariikhda, time iyo waqtiga. Haddaan u baahdo inaan god kale row aan ku soo daro waxaan taabanayaa tab waxa ii soo galaya row kaleeto. Waxaan samaysanayaa marka table-kii ayaan qurxinayaa halkaan ayaan tagayaa waan jiidayaa sida si la mid ah godka magaca xawaa inaan weyneeyo rabaa. Waxaan qorayaa marka number 1 tab ayaan leeyahay. Waxaan raacinayaa halkaasi qofka magaciisa. Tusaale kaleeto waxaan qoranaynaa Maxamed Abduqaadir ninka la yiraahdo. Tab ayaan leedahay. Genderkiisa ama sigiskiisu waa male. Taariikhda maanta ayaan rabaa. Qofkaan maanta ayaan qoray ama xogta ayaan ka buuxiyay. Markaan taariikhda maanta aan sheegayo ama aan soo gelinayo oo computer-kayga uu ku saxan yahay taariikhda waxaad taabanaysaa Alt Shift D. Waxaad isla qabanaysaa Alt Shift iyo D. Sidaas la mid ah tab ayaa dhahaysaa waqtiga hadda ayaan gelinayaa oo waxaan leeyahay Alt Shift T ayaa isla qabanaysaa. Halkaas waxaa kugu soo galay marka waqtiga hadda waa 5:47 daqiiqo oo subaxnimo. Tab ayaan leeyahay oo number-ka labaad ayaan soo gelinayaa halkaasi. Mar walba marka number ma qori karayo waxaan sameynayaa waa calaamadeynayaa. Home tab ayaan tagayaa. Numbers ayaan ka dooranayaa. Number 1-kaana waa iska tirayaa. Qof kale ayaan qorayaa oo waxaan leeyahay Amal Cabdi. Tab ayaan leeyahay waa female Amal Cabdi. Sidaas la mid ah taariikhda waxaan ku soo gelinayaa sida dayaan sheegay Alt Shift D, Alt Shift T oo time-ka. Marka waxbaan ilaabay. Tusaale kaleeto Maxamed iyo Amal qof baa u dhaxeeyo ayaad ilaawday ama form ayaad buuxinaysaa computer-ka aad ku qoraysaa gacan qoraal. Amal miyaad tiraysaa marka may. Waxaan sameynayaa marka waxaan ku soo darsanayaa row kale. Kan waxaa la yiraahdaa row. Row-gan oo Amal ah iyo Maxamed row-ga ah waxa u dhaxeeyo qof. Waxaan ku soo darsanayaa marka row kale. Sideen ugu soo darayaa? Waxaad ugu soo daraysaa kow waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay Maxamed. Waxaad ku dhufanaysaa halkaani. Waxaad ku dhufanaysaa layout. Markaad ku dhufato halkaan ayaad imaanaysaa. Insert above haddaad doorato Maxamed ayuu ka kormarayaa oo number 1 kale ayuu sameynaa. Insert below haddaad doorato wuxuu sameynayaa marka Amal iyo Maxamed dhexdooda ayuu wuxuu ku gelinayaa shakhsiga adigu aad rabtay ka asma. Sidaas la mid ah godkaan gender-ka ah iyo godkaan full name-ka ayaa waxaad rabtaa inaad column cusub aad soo geliso. aad ka abuurto meeshaasi column cusub. Waxaan tagayaa halkaan waxa ay full name-ka ku qoran tahay. Layout-ka ayaad ku dhufanaysaa. Waxaad ka dooranaysaa left haddaan doorto insert left Maxamed ayuu halkaan ka marayaa SN iyo Maxamed ayuu u dhaxeynayaa full name-ka. Haddii aan doorto right wuxuu u dhaxeynayaa gender iyo kan. Waxaan dooranaa marka right aniga. Waa kana halkaan ayuu soo galayaa. Waxaan ku qorayaa marka subject maadada ay bartaan. Marka hadda sidaas waxa ku samaysay table waliba waxaa soo gashatay column-ka ama row-ga adigu aad ilaawday saad ugu soo buuxiso adigu aad midna aad tirtirin. Waxaan ku xijinaa isla table-ka ah merge inaan isku furo. Tusaale kaleeto waxaan isku furayaa halkaani. Qaybtan kore Maxamed iyo full name-ka ay ku qoran tahay ayaan select gareynayaa. Kadibna waxaan ka dooranayaa layout. Kadibna waxaan ka dooranaysaa merge cells. Waxaan aragtaa halkaani waa isku wada furmay. Waayahay. Waxaan rabaa hadda marka split cell meeshaan aan kala jaray inaan isku soo celiyo oo sideeda ka soo dhigo split cell aan ku sameeyo. Waxaan taabanayaa marka halkaani godka ay dhex joogaysaa cell-ka. Split cell kaliya ku sii kadib wuxuu ku leeyahay number of columns meeqa ka rabtaa. Columns waxaan ka rabaa 6.
waayahay number of rowskana rowga sidiisa ku daa. Okay de waxaan aragtaa halka marka waxaa ii soo gashay 6 column ayaa ii soo gashay oo waxay iga baahan yihiin marka mid walba inaad toosiyo, mid walba godkiisa inaad ku toosiso. qodobka ugu dambeeya aan ka qaadanayna table-ka wuxuu yahay explicit inaad kala jaro. tan ugu horeysa information-ka ay ku qoran tahay SN full name-ka inaad ka jaro qaybta ka hooseysa. waxaan ku dhufanayaa, waxaad tagaysaa godka magaca kugu qoran yahay, kadibna layout, kadibna explicit table ayaad ka dooranaysaa. table-ka sidaas ayaad ugu reebtay column-kaasi. taasi waa marka sida table aad u samaysan lahayd qaybihiisa kala duwan. waxaan rabaa marka hadda warqadeeda inaan u samaysto wax la yiraahdo header. warqadu waxay leedahay calaamad tusaale ah, magacaada, company-ga u shaqeyso loogadiisa ama magaciisa. header-ka laba siyaabood ayaad ku soo gelin kartaa. kow inaad ka doorato insert-ga, kadibna header aad doorato. header-adan midka rabtid ka doorato kan oo kaleeto, kadib aan dhaho, kadibna aan select gareeyo, home-tab-ka aan tago, farta aan weyneesto. sidaas hadda waxaa kusoo geliya header. sidaas la mid ah haddana waxaan soo gelinayaa footer qaybtan hoose. waxaan ku dhufanayaa insert tab-ka, kadibna waxaan ku dhufanayaa footer, kadibna waxaan soo gelinayaa midkaani. halkaani waxaan ku qorayaa haddana Soccerseed Academy page 1. hadda warqadeeda marka print preview markaan dhaho, kor magaca waxaa ugu qoran academiyada, hoosna magaca academiyada iyo page-ka ay ka tahay. taasi waxaa la yidhahdaa marka header iyo footer saa u soo gashan lahayd. waxaad haysataa warqad badan. qodobkeena ku xiga wuxuu yahay page number. sideen ugu samaysan karaa warqadeeda aniga page number? marka ugu horeyso waxaan soo gashanayaa horta qoraal iska tusaale ah ilaa 30 gaaraya. warqadani sidaad arkaysa hadda wax page number ay leedahay malaha, waa 4 page. waxaan ku dhufanayaa insert tab-ka, kadibna waxaan ka dooranayaa page number, kadib waxaan ka dooran kartaa kow top qaybta sare, bottom hoose ayaan dooranayaa, kadibna waxaan dhahayaa marka qaybta dhexda isii. waxaan aragtaa page-ka afraad. okay. qodobkeena 3 ayaa ku xig oo ah qodobka afraad. waxaan ku qaadanaynaa watermark wax la yiraahdo. warqadan haddaan anigu qoray, waxaan rabaa inaan daawacdo. maxaa caddeynaya inaan warqada anigu qoray academiyadeeda inay ka baxday? waxaa caddeynaya waxay tahay, waxaad ku dhufanaysaa page layout, kadib waxaad ka dooranaysaa watermark, kadibna waxaad ka dooranaysaa custom watermark, kadib waxaad kasii dooranaysaa text, kadib meeshaan asab ay ku qorantahay ka tirtir oo waxaa ku qorantaa academiyada magaceeda. kadib farta ka bedel, halkaani tag oo fartaa rabta doora, kadibna waxaan leeyahay marka apply markaan dhaho, waxaad arkaysaa halkaasi inuu ku jiro Soccerseed. haddaan si fiican u arkaynin ku laabo, custom ku dhafo, kadibna meeshaan waxaad ka dhigaysaa kalarka ay ku qoran tahay kalar madow. okay de hadda waxaan jeclahay inaad si fiican u arkayso. waa kaa warqadaas hadda haddaan isku dayo inaan daawaco, qaabkaas ayay ku daawacmaysaa oo qofka awooda ma lahan asigoo aysan haynin PDF documentiga saxda ah. qodobkeena ku xig waxaa la yidhahdaa spec check and grammar. waa qodobka 5aad aan ku qaadanayno spec check and grammar. qoraal ayaan rabaa inaan qorto. tusaale kaleeto, computerka ma yaqaano Soomaali, oo sababta u siinayo calaamada gaduudka ah. haddii computerka Soomaali aad ku qorayso, waxaad ku dhufan kartaa right click, kadibna ignore all. sidaas waxaa kaaga qaadmaya calaamadihii gaduudka ah hoos u kulahay. bal haddii English qaldan aan qorayo, tusaale kale hadda rare, waxaad aragtaa inuu calaamad gaduud saaray. ereygaasi haddii aan ka dhigo sidaani, calaamad gaduud ma saarayo oo marka kow waa qalday oo waxaan ka dhigay marka rare. waxaan rabaa marka inaan saxo. waxaan kaloo qorayaa marka focus oo kale ayaan ka dhigayaa, deero oo kale ayaan rabaa. saddexdoodu way qaldan yihiin. saddexdoodu laba qaab ayaan ku sixi karayaa. qaabkan ku sixi karayaa waxay tahay halka right click inaan ku dhaho, ereyga aan ka doorto kow, review tab-ka, kadibna waxaan ka dooranaa spec check and grammar, kadib erey walbo qaldan oo dictionary aan ku jirin halkaan ii soo saaraya. kadib waxaan leeyahay marka change, ku bedel ereygaan inta ku jira. hadda deero waxaa lagu bedelay deere ayaa Englishkii saxda ah.
maxaa aragtaa marka halkan the speech sharing grammar is complete okay ayaa leedahay sidaas ayaad ku saxday marka qodobka ugu dambeeya oo aan ka qaadanayno waa sitting tab qodobka ugu horeeya in cashirka aan ugu soo hadalna wuxuu ahaa sida table wax ugu qoran lahayd laakiin hadda way ka duwan tahay oo waxaan rabaa bilaa table inaan wax qorto waxaad samaynaysaa marka koowaad rulerka ayaad isticmaalaysaa mastarada haddaysan kuu soo baxsaneyn waxaad ugu dhufanaysaa halkaani oo view ah kadibna jeega waxaad saaranaysaa rulerka kadib waxaan leeyahay halkan kilig ku sii halkaa kilig igu sii sidaas lamid ah halkan kilig ku sii halkaana kilig igu sii meeshaa rabtaad ka samaysan kartaa aniga waxaan ku qoraa hadda sn tab ayaan leeyahay full name tab ayaan leeyahay gender tab ayaan leeyahay date tab ayaan leeyahay subject enter ayaan leeyahay marka intaan dhihin marka waxaan ka samaysanayaa marka calaamadahooda bold ayaan ka dhiganayaa hoosna haddaan rabo waa ka xariiqin kartaa haddaan rabto iska diin kartaa halkaana imaanayaa number ayaan qoraa marka number 1 kadibna space ayaa taabanaysaa soo numberka iska xijiyo okay qofka ugu horeeyaan qoray daa wuxuu ahaa maxamed cabdikaadir waxaan leeyahay marka tab ayaan leeyahay waa May taariikhdiina maanta ayaan ku qorayaa subjectigu bartana waa computer enter ayaan leeyahay qofka labaad magaciisa Amaal tab ayaan leeyahay waa female Amaal taariikhda islaamaad ayaan gelinayaa tab ayaan leeyahay caafimaad oo kale ayay wiilka iyo iskuulka barataa waxaan ku qoraa halkan Cali Axmed tab ayaan leeyahay waa May isla maanta taariikhdeeda ayaa la qabtay in iskuulkan wuxuu ka bartaa maadada Ingiriiska hadda waxaa sidaas ku qortay qormo arday ah adigoo aan isticmaalin wax table ah ayaa sidaas ku qortay fadlan dadku cusubtaa subscribe saar una share garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan